kulankani balaaran oo mid galeelidiisa qurxoon looga soo shaqeeyay samarkan ujeedadiisa guudiya duladiisa gaaraneed ahayd mid daaran daafurka waxbarasho bilaasho oo loogu talagalay inay helaan ardayda wax ka barata dugsiyada sare deegaanada kala duwan ee Somaliland una fidisa jaamacadda UCSI University fadhigeedu yahay ariga dalka Malaysia Google xarkeeda iyo sidoo kale hirgelinteedana qayb laxad ay ka qaateen ururka lagu magacaabo Quality Education and Training Consultancy oo dhaqdhaqaaqa dhanka waxbarashada da'yarta iyo sidoo kale tayinteeda kana diiwaan gashan dalka Malaysia ayaa saaka lagu qabtay mid ka mid ah howlka Hotel Safari ee magaalada Hargeysa waxaana kulanka wadajir uga soo qayb galay madaxda UCSI University horjoogayaasha maamula ururka Quality Education Training and Consultancy xubno ka mid ah saraakiisha wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare ee deegaanada Somaliland oo aan kaliya Hargeysa ku ekeyn kana soo kala socdaalay deegaano kala duwan waxaana halka ugu horeyn ka hadlaysa markana sharaxaad dheeriye ka bixiyay kulankan iyo ahmiyadda gaar ahaaneed ee u leeyahay waxbarashada dugsiyada sare iyo da'yarta xilligan ku fogan qalinka iyo buugga Abdullahi Diiriye Liban oo ka mid ah horjoogayaasha ururka Quality Education and Training Consultancy ma aha daruuri maadaama ay dee iskuuladeena wada haysanba ama aan lagu wada dhigan oo la raacin systemka taasi waa taa talabaad ee ah arinta labada imtixaanka iskuulku qaadayo iyo ka dawladdu qaadayso scholarshipkan wuxuu ku base gareysan yahay ka iskuulku qaadayo magaca halka ka muuqda waa principal marka inta badan awoodihii scholarshipku wuxuu gacanta ugu jirayaa maamulaha iskuulka maamulaha oo marka aanu ka filayna inuu la iman doono mas'uuliyadeedii insha Allah ardayda iskuulka imtixaankii uu qaaday ugu sareysay ayuu maamuluhu soo liskareynaya isaga u xora marka numberka inta yihiin 10 bay noqon karaan 20 bay noqon karaan 15 bay noqon karaan uu ka badin karaa waayo waxa ka dambeeyo daba socda waa interviewgii ayaa daba socda marka waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waa natiijadii saxda ahayd ee ka soo baxday imtixaanka iskuulka laga qaaday oo ama imtixaan ku dhowdhow ama u dhigmaba kii dawladda maadaama uu yahay examkii hore ee ka horeeyay ka dawladda hadalnay laftarkooda ardayga waxay yiraahdeen waxaan u samayn karnaa bay yiraahdeen discount 25% discount ayay u samayn karaan ardayda wixii sanadkii hore baxay waliba gaar ahaan ardayda grade-koodu fiicnaa laakiin scholarship-kan iyo barnaamijkan wuxuu bilaabmayaa sanadkan ardayda form 4-ka ah ee ku jira ayaa lagu bilaabayaa interview-ga markay qaadaan kadibna ardaygu wuxuu marka ardaygii loo sheegay intii uu helay wuxuu bixinayaa $100 oo ah diiwaan gelin waa intii ay ku sheegtay lacagta Maleeshiyaanka $100 buu noqonayaa waa marka loo sheegay ardayga inuu wixii helay tusaalaha kale wuxuu helay 75% buu helay ardaygii waa la gaarsiiyay marka $100 ayuu bixinayaa oo uu leeyahay wixii waan aqbalay inta markuu aqbala kadib waxa imanaya visa inta badan hay'ad gooniyo immigration ah shaqo ku leh marka iyagu waxaan scholarship-kayna siinayaan waxyaabaha inaga bixin maayaan waxay naga bixinayaan waxa weeye waa wixii la xiriiray waxbarashada ay naga bixinayaan laakiin wixii kale dheeraad ahaa iyagu ardaygu isaga iska bixinaya visa Malaysia kale waa lacag u dhaxaysa ilaa $600 meelaha waan filayaa inaad la socotaan lacagta ardaygu isaga iska shubaya suu fiisihiisii uu ku joogay wadanka u helo hooygiisa oo kale ardaygu isaga iska bixinaya iyo meeshuu degayay markuu xaga tago isaga iska bixinaya iyagu waxay ka bixinayaan waxa weeyaan waa wixii fiiga jaamacadda la xiriira dhankiisa waxay isaguna halka ka hadlay Cilmi Maxamed Muuse isduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Maroodijeex isaguna tilmaamay inay tahay talaabo hore loo qaaday isla markaana guul u noqon doonta daayirta wax ka barata dugsiyada Somaliland waxaanu u mahadceliyay ururka soo agaasimay iyo sidoo kale jaamacadda hirgelinaysa programkan oo ah program aad u faa'iido badan oo aan filayo inaynu aad iyo aad uga macaash doono oo scholarship uu ku jiro oo maamulaha la xiriiray ardaydeennaba waxa loo baahan yahay inta aynu halkan ku suganahay inaynu sida ugu wanaagsan uga faa'iideysano maskaxda si wanaagsan aynu tuujino Professor Dr. Jimmy Mock iyo sidoo kale Farax Faisal oo ka mid ah madaxda jaamacadda UCSI University oo dhankooda halka ka hadlay ayaa waxay xuseen inay wadamo kala duwan ka howlgalaan isla markaana xilligan halkan u yimaadeen sidii daayirta wax uga barata dugsiyada sare ee deegaanada Somaliland ay uga taageeri lahayn waxbarasho dibadeed iyaguna xusay inaanay hay markii ugu horeysay halkan socdaal ku yimaadaan waxaanay dhanka kale hoosta ka xariiqeen 25% ay ka taageeri doonaan waxbarashada ardaydii hore uga baxday dugsiyada sare ee deegaanada Somaliland kuna faraxsan imaashiyahooda Somaliland ma aha dadka guuleysanaya Mareykan mana aha Ingiriis mana noqon doonaan Maleeshiyaan
ee waa Somaliland dariska berito la noqonayo hogaamiyaasha. waxaanan idin rajaynayaa guul. sidaasina waxaa hadalkiisa ku soo gunaanaday Dr. Jimmy. Not because they are American, not because they are English people, not because they are Malaysian. The success of our university is because these are Somalilanders and Somalian, that they are leaders for the future. oo kulankan ayaa noqonaya mid noociisa ku cusub ee deegaanada Somaliland marka la barbardhigo. waa markii ugu horeysay ee kulan noocan oo kala gudaha Hargeysa laga hirgeliyo, isla markaana fursad hor lagu noqon kara ardayda wax ka barata xilligan dugsiyada sare ee deegaanada Somaliland iyo kuwii hore uga soo baxay. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.